shalay gudoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari waxa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu iska casilay xilkii gudoomiyaha dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan weydiinay aragtidooda ku aadan iscasilaada gudoomiyaha baarlamaanka waa kuwan qaar kamid dadkaas oo aragtidooda ka dhibanaya iscasilaada gudoomiyaha waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa iscasilaada gudoomiyaha Jawaari oo iscasilaad Maxamed Cismaan Jawaari iscasilaadiisa aad u soo dhaweynaynaa waa nin aad aqoon-yahan oo muddo 50 sano ka badan siyaasadda dawladda ku soo jiray oo yaraan dhowr luqad ku hadlaa waa nin professor aqoon leh waxaan hadda maanta dawladda ka codsanaynaa maadaama uu iscasilay gudoomiyaha in meel xanaaneyna oo meel dego wanaag amaankiisa wixiisa lagu sugayo in la dejiyo haddii alla ku reenin kala aqoon leh dhalinyaro in Ilaahay noogu bedelo insha Allah ilaahay arinta Jawaari oo iscasilay waxa waaye tanaasul oo tanaasulay khalkhalkii dalka galay inuu asaga laba daran mid dooro waa dalkii inuu khalkhal ku jiro isdil oo ku jiro si loo badbaadiyo labadaas isdil ee khalkhalka loo bixiyo ayuu tanaasulay laakiin waxaan aaminsanahay in laga gardarnay arintaas laakiin asigaa tanaasul suubi magacaygu waa Luqmaan Ibrahim oo kamid ah dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho gudoomiyaha iscasilaadiisa daacad si lama filaan u dhacday mana filanaynin aniga waxaan kamid ah dadka taageersanay gudoomiyaha oo jeclay inuu joogo oo inuu mustaqbalka wadankan uu ka taliyo jeclay haddana iscasilaadiisa haday dhacday waxaan rajaynaynaa insha Allah bedel ka wanaagsan iyo dawladda inay hor u sii shaqeyso Ilaahay guud ahaanba waxaa la qaaday dhagaxyadii carooyinkii ku goona xaafadaha gala wadnaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka xigta wadada Maka al-Mukarrama dadka ku dhaqan xaafadahaasi iyo wadayaasha gaadiidka ayaa siyaabooyin kala duwan oo ga hadlay muhiimadda ay leedahay in dib loo furo wadooyinkaasi waa kuwan qaar kamid ah dadkaasi oo la hadlay telefishinka Universal bismillahirrahmanirrahiim waa dhagaxyada laga qaado horta faa'iido weyn macnaha aniga ra'yigayga 100% inuu waxaan kamid ah baawureyda marka jidadku ugu xirmaan saxmada baatan waa meelihii aan ka soo wareegsan jirnay marka sidaas aad 100% anaga waxay noo tahay fursad waxaan leenahay magaalada waa u mahad celinaynaa macnaha in maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga inta dhimanna waxaan rajaynaynaa in nagala wada qaado insha Allah socodka magaalada waa fududaatay waxyaalo badan isbedelay marka waxa waaye waa horumar la gaaray kamid tahay insha Allah khayran rajaynaa insha Allah salaamu alaykum waxaan ku fadhaxsanahay wadooyinka la furay aad iyo aad ugu maxambaliyeenaa maadaama dib aan ku qabnay hadii xataa meedna qabsado hadii wax qof naga jirto meel aan soo marsana weysnin hadda maadaama la furo kuma ku maxambaliyeenaa dawlad sharafta leh saayida dib noogu wees waxay dib noogu wees hadii xaafadda meed ka dhaco meel aan soo marsin meeysan maantana waa kana alxamdulillah jidadku waa furiin nabadda xataa qayb ay ka qaadanaysaa arintaas Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh Universal TV Muqdisho